بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدعوة ديال البرنامج كنا وحين كسوة قادم تونا وفد بلادن وكترسل حسبك معارض كلمية إسلام كان وجاميني حقيقة رماد بدأ حسبك كلمية دكتور محمد عبد الله عمر أيام مالتي شلي هاي صعدال كسوة مريض كانوا كترسل قبل كجبلي تجني حقيقة جاميني يا مقالويك وصعدال كسوة مريض وحكمتها arabsiyo gebeley kala badh iyo togwa jaale halkaasi oo ay dhammaan dadweynaha isugu soo baxay magaalooyinkaasi kala hadleen mas'uuliyiintii xisbiga wafdigaasi la socday wafdigan hogaaminayay xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga kulmiye waxa uu isugu jiray xubno ka socday qurbajooga xisbiga kulmiye ee dalalka qaaradda Yurub ka tirsan sida dalka Ingiriiska iyo sidoo kale xubno uu ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale iyo injineer Maxamed Xaashi Cilmi iyo madax iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi oo ka mid ah Mujaahid Shariif wafdigani hogaaminayay xogayaha ayaa waxa ay socdaalkooda ka bilaabeen magaalada Arabsiyo ee ka tirsan gobolkaasi Gabley halkaasi oo ay wafdigaasi diiran ugu soo dhaweeyeen dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi iyada oo ay mas'uuliyiin ka mid ahaa wafdiguna meel fagaara ah kala hadleen boqolaal taageerayaasha xisbiga kulmiye ah ee ku dhaqan magaaladaasi Arabsiyo mas'uuliyiintii dadweynahaasi reer Arabsiyo halkaasi kala hadlay ayaa dhammaantood u mahadnaqay taageerayaasha faraha badnaa ee halkaasi isugu soo baxay isla markaana muujiyay taageerada ay u hayaan xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye wafdigani ayaa magaalada Arabsiyo waxa ay uga sii gudbeen magaalada Gabley ee xarunta gobolka Gabley halkaasi oo wafdiga si aad u balaaran loogu soo dhaweeyay iyada oo ay boqolaal taageerayaal ah oo ku labisnaa calanka xisbiga kulmiye iyo astaamo kale oo ka mid ah astaamaha xisbigaasi kulmiye ay taagnaayeen jidka laga galo magaalada Gabley ilaa fagaaraha khayriyada ee magaaladaasi Gabley halkaasi oo ay markii dambena mas'uuliyiintii wafdigaasi hogaaminayay kala hadleen intaasi kadib ayaa wafdigu waxa uga gudbay magaalada kalabayd oo ka tirsan gobolkaasi Gabley halkaasi oo ay mas'uuliyiintii xisbiga wafdigani ka mid ka ah kala hadleen taageerayaasha iyadoo wafdigu socdaalkiisa ku soo gabagabeeyay magaalada Togwa Jaale halkaasi oo ay boqolaal taageerayaal oo ay ka muuqatay astaanta calanka xisbiga kulmiye oo ay direys ahaan u xidheen halkaasi kala hadleen iyada oo ay dadweynuhu fuushanaayeen meelo loogu talagalay iyada oo dadweynahaasi ay la hadleen mas'uuliyiin uu ka mid ahaa xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga kulmiye dr maxamed cabdilaahi cumar oo wafdiga hogaaminayay injineer maxamed xaashi cilmi iyo cabdicasiis maxamed samaale iyo madax kale oo iyaguna wafdigan u helinayay daawadayaal safarkii uu wafdigaasi maalintii shalay ay ku tegay goboladaasi ka tirsan deegaanadaasi ka tirsan gobolka Gabley mas'uuliyiinta halkaasi dadweynaha kala hadlay ayaa waxa ay u dhacday sidan kii soo maray halkan wuxuu idin aniga dhiisheedii way buuxdaa tumada waxba ku ridina wuxuu noo sheegayaa inuu shaarkii shaqaalayo kii ciidamadaba cunay waa madaxweynihii ugu horreeyey ee qirtay inuu xoolo umadeen cunay waxaynu leedahay dhiishiisu ma buuxsantay inaan ku taganin ma buuxsanto miyay buuxsantaa waxaynu yeeli doonnaa waynu tashani shaqaaluhu wuu dulman yahay ciidamadu way dulman yihiin dalku wax horumara dariiqyada waadigaarka godadka ka wada lacag lama waayin waa taa uu dhiisha ka buuxsaday miyaynu ku soo celin mar dambe abaalgud miyuu inagu leeyahay si wanaagsan baa loo doortay oo lagu soo celiyey oo lagu muxuu sharifay miyuu sharafkii muxuu iyo milkadii la saaray miyuu gutay waxaynu leenahay markaa waxaad noogu soo noqotaa kuuma yaallo ee nabadgeliyo kuuma yaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu reer Gableyna aad bay u mahadsanyihiin sidaa ballaadhan ay u soo baxeen sida loo abaabulay iyo muxuu ahaa dulqaadka inta aad muujiseen aad baad reer Gabley haddaad tihiin u mahadsantihiin tanina waa tii uu ku quus qaadan lahaa sidaas iyo nabadgelyo xaggaasaan u socnaa ilaahay hayna guuleeyo kulmiye ha guulaysto udubiya dadkeeduna hayna dhaafeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inamadii mujaahidiinta ahaa ee xalay xisbiga ku soo biray iyagana waxaan leeyahay guulaysta waxaan ku soo dhawaynayaa iminka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada
أحمد سمالة وعلي كسود وقول كاكي كسود وضد كاكي كسود وحزب كاكي كسود وحزب كاكي وإيستيك إنه بحيا إلهي عافان السيد كسود ويسك الله أكبر والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وتعالى حمد شاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إلهي حق هاي نوافجيو وحين دوني نيو وناكسن إلهي هاي نوفضيديو أدون وناكسن يا آخر وناكسن إلهي هاي نصيو دولد وناكسن أو عدالة أمتك وحكنت إلهي هاي نودليو دولد وناكسن أو أمتك يدد كذا أشقيس إلهي هاي نودليو dad aan dadkooda ka xoogsan ee dadkooda u shaqeeya ilaahay talada ay noogu dhiibo dad aan diishoodu buuxsamin oo mar walba noogu shugala ilaahay ay naga hayo kuwa aan iyagu diila ka buuxsanayna ummadda u shaqaynaya ilaahay talada ay noogu dhiibo ilaahay wax wanaagsan ay noo dooro isagaa og waxa ummadda khayrka ugu jira ilaahay khayrka hayna waafajiyo cidda tartamaysa inta wanaagsan ilaahay wanaagga waa ka talada ilaahay noogu dhiibo Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato kulmiya ha noolaado ha guulaysto cidda wanaagsan ilaahay talada ay noogu dhiibo hadda inagu ciddaasaa xun maynaan oda soomaa ciddaasaa xun miyaynu nidhiba cidda wanaagsan ilaahay talada ay noogu dhiibo ilaahay haynoo dooro ma dooran naqaana ilaahay haynoo dooro cidan gufanayaa lahayn oon dadkan ku naaxin ee dadka u shaqaysa ilaahay talada ay noogu dhiibo ubadka badda isku guraya kuwa u naxa oo waddankooda shaqo ka siiya ilaahay talada ay noogu dhiibo kuwa aan dhagaxyo beena iyo washaro beena aan dhulka dhigin ee washaro runa dalkan ka dhisa ilaahay talada ay noogu dhiibo kuwa runta sheega ilaahay talada ay noogu dhiibo beenaalayaasha ilaahay ay naga ilaaliyo hadda anigu cid beenaale baan odhanay beenaalayaashaan idin soo maa laakiin cidda beenaali way sogtahay soo maa ilaahay beenaalayaasha ay naga hayo ilaahay ummaddan cid runta u sheegta ilaahay taladeeda ha ugu dhiibo walaalayaal ha hoggaan wanaagsan oo daacada oo ummaddan walaaleeya oon ummaddan kala qoqobin oon ummaddan isku dirin ee ummadda u shaqeeya ilaahay talada walaalayaal ha inoogu dhiibo walaalayaal maanta waa maalin sabti ah bishuna waa 19 maanta maalinteeda sabtideeda bishu waa 26 waana maalinta la codaynayo walaadoo fiirsada maanta waa sabti soo maaha soo sabti maaha sabti ma tahay maalin sabti soo maaha goobtu waa halkee waa gabley soo maaha goobtu soo gabley maaha maalinteeda waa maalinta codaynta codka yaynu siinaynaa codka codkeenna miyaa la iibsanayaa miyaa la iibsan karaa codkeenna hunguriga miyaynu ku shaqaynaa dhiil mudan maynu buuxinaynaa dadka idhi dhiilahayaga waxba noogu dhaco in baa noo dhimana waanu buuxsanaynaa miyaad codka siinaysaan codka maad siinaysaan ayaad siinaysaan codka ciddaad doontaan soo maaha idinku ciddaad doontaan soo maaha bulshada reer Somaliland cidday doonta soo maaha walaalayaal ciddaad doontaan siiyo codka cid allaaliya ciddaad la jeclaataan yaad la jeceshiin codkiina markaad waxaanu joognay magaalada Burco waxaanu u gudubnay Oodweyne horta barigii way uga dhamaatay Odo laakiin waxaan maqlayaa hadalay ku soo dhacaya galbeedkaanu ku xoog badanahay taasi madaba taasi halkay ka carhaabeen miyaanay ahayn adabsee miyaanu xagga kale uga wareegin oonu kama baxsan miyaan dadka laga soo guray Itoobiya meelo kale dadkan maanta ma lacag baa la isugu keenay ma baabuur baa soo gurtay ma cid baa xoog ku keentay soo caqligiina kuma idin iman iyo taladiina iyo caqligiina codkiina